Soomaaliyeed raggii soo halgamay magacana ku lahaa sharaf iyo heybad ku lahaa isboortiga Soomaaliyeed laba nin Allah u naxariisto marxuumiin aadan xaaji yabro wiish iyo marxuum Saciid Maxamuud Nuur Saciid Mugaab loo yaqaano waxay ahaayeen halgamiyaal waxay ahaayeen dad haliyeey ah waxay ahaayeen duruufaha qalafsan aad ogtihiin marxaladda maanta ummadda Soomaaliyeed ay marayso rag waxay ahaayeen magaalada Muqdisho u taagan garoomadii aad ogeedeen ee fagaarooyinka lagu ciyaaro kubadda kolayga lagu ciyaaro kubadda cagta aad moodo maanta in meel jungle oo kale ay noqotay oo yani meel ay ka soo baxeen yani dhirtii waaweyn loo geli karaynin ayay weli u joogeen magaalada Muqdisho maasha Allah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay weli u qabtaan ciyaaro ama fankii isboortiga weli aanay ka harin ayagoo waajibkoodii qaranimo gudanaya waayo isboortiga ay jeclaayeen kama ahayn maal ku hel kama ahayn magac gaara ku hel laakiin waxay ahayn dad ehel ah oo u dhashay jecelna isboortiga had iyo goor u taagan iyadoo dagaallo sokeeyey oo hubiyaha arkaysa u dhacay iyadoo arkaysa kaararkii meesha maray iyadoo arkaysa dagaallo culus oo habeen iyo maalin yani ummadda ku hoobatay ayagoo weliba xilkoodii waajibkoodii gudanaya ayaa tii rabbi eebe yani arbacadii aynu soo dhaafinay magaalada Muqdisho saa ogtay National Theatre-ka gacan xaqdaran oo gardarro ah oo qof maskiin ah oo bini aadam ah la soo miineeyey lagu soo rakibay ayaa waxaa lagu dhex tuuray yani qarankii Soomaaliyeed raggii odayaasha ahaa u halgamay wax badanna usoo halgamay horumarinta isboortiga Soomaaliyeed aadan xaaji gaar ahaan aadan xaaji yabrow wiish wuxuu ahaa nin aan soo wada shaqaynay muddo aad iyo aad u fara badan wuxuu ka soo bilaabay garsoorka kubadda kolayga 67 ilaa uu noqday xogeyaha xiriirka Soomaalida kubadda kolayga wuxuu noqday aadan xaaji yabrow gudoomiyaha kubadda kolayga Soomaaliyeed markii dambana Allah u naxariista marxuum aadan xaaji marka haddii uu geeriyooday wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed guud ahaan isboortiga Soomaaliyeed ayuu mas'uul ka ahaa ninka xiga isla sidii kale Saciid Maxamuud Nuur Saciid Mugaabo waa ogtiin ciyaaraha sidoo kale mar haddii laga haysto garoomadii oo dhibaatooyin fara badan ay ka dhacday weli ma aanay istaagin raggaasi oo waxaad arkaysaa magaalada Muqdisho duleedkeeda iyagoo yani garoomo ka sameeyey si at least ay ciyaarahaasi yani ay u socdaan isla markaas ciyaaraha East and Central Africa ka qaybgelayay oo mar kasta u soo taagnaa in ay yani Soomaali ahaan haddaynu qaran ahaan dhibkaas ha dhaco laakiin waynu joognaa ciyaaraha East Central Africa calanka ay geyn jireen meel kastoo ciyaaraha adduunka lagu qabanayo Olombikada ha ahaato ciyaaraha adduunka ha ahaato zoonka shanaad ha ahaato waxay ahaayeen rag hadi goor u taagan kana qaybgeli jiray ummadda Soomaaliyeed meel kasta geyn jiray calanka Soomaaliyeed Allah u naxariisto waxaan habeenkan caawa u soo istaagay sidii hore loogu sheegaba inaan xusno inaan iloobin laga qoro buugaag laga qoro qoraallo fiican yani loona abaalgudo inkastoo ay ku dhinteen xaq darro laakiin jannadii firdowsi sabir iimaan ummadana Soomaaliyeed Allah ka wada siiyo waana salaamantiin Today I was going to read, alhamdulillah for being here, this is an amazing event. Today I was going to read a poem about sports and how it brings us together, but after the awful attack and deaths on this past Wednesday, I was moved to read this poem instead. I think it's important for us to understand the dire situation that's going on in Somalia, and so I'm sorry to bring everybody's mood down, because it's been such a beautiful, lively event, but this is a little bit about what's going on and how our role in the diaspora is. We are asleep. We've shut our eyes and fell into the pitiful slumber of the apathetic. Even the cries of our nation cannot wake us, as if the vast entity of sea is enough to break us. Our ties with our home is shattered, and all of the ideals that once mattered are gone. We are now children of the diaspora,
forgetting the strong, beaten woman that birthed our forefathers. We've either run or are running from our birth mothers. Dear Somalia, we are sorry. But words cannot heal the wounds of our broken nation. They can only soothe the sores of her broken spirit. And although we may see only a helpless situation, hope is still alive if we wish only to hear it. It beats in our hearts. It grows in our السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa macalin ciise coachka TSS Tennessee Somali Stars oo ka soo qayb galay tournament Ohio tournament waa sanadkii afraad ama shanaad ka soo qayb galo mar waan u qaadnay 2008kii dhowr jeer semi final final baan nimid kana waxa joognaa semi final san ku soo gaarnay waxa weeyaan 12 team baa ka soo qayb galay afar group min afar oo kala qaybiyay actually لحية تونتي أفر قرن من أفرة مركا وحى جروب كي أنا كان نمبر 1 كصوب حني مركا وان هذا بس إنفانك وحنا العيار إن واشنطن دي سي إن عيقنا مركز إن سيمفانك صوب حي سيمفانك لو عيار إيجلز أو ريرو حيا وحيو بحيا أن توين سيريز أو مينيسوتا كصعطة markaas labada semifinalka badiya ayaa wala ciyaari doona finalka marka insha Allah waxaan rajeynayaa in finalka badino hadii Ilaahay noo qoray insha Allah saas taadi waqoon ay meeqa qof ayaa ka soo qayb gashay ciyaaraha waxaan filayn 16 qabo ka soo qayb galeen 16 team ka soo qayb galeen afar group laga kala dhigo min afar markaas group walba laba ka soo baxay marka laba ka soo baxay doctor quarter final la ciyaarey quarter final ka soo badanay in midnimo oo ah Minnesota ka socota ayaan 3-2 kaga soo raynay anagu kuwii kale soo kala raayay war ma hayo laakiin xaqana waxa ka soo baxay in Virginia iyo Eagles iyo Reero Haya iyo Twin Cities okay hadda maadaama kooxdiinay ay semi final ka imaadeen macna diyaar garow intee la eg ayaa maanta diseen meeshan والله سيدنا جيم وول بانك فاينل بنوها جيم كسو عياريان با markaas جيم وول baan raanahay hal game laga maraynin so far way wala raayeen and kana soo finalki iyo marno xisaabsan yahay markaas si yaro dib yaro ma qaadana team kan ciyaara team aad u adag team ka dhammo walaad kaan aan ciyaarayna markaas si yaro ciyaaran baan ciyaarana insha Allah duulaad wax special ma nusayno bedelay and same tactics baan ku ciyaarana insha Allah السلام عليكم جامع محمد حرسي معنا معلم واشنطن دي سي ما نكو ما انت عيارينو سماي فاينل كي او تينيسي لا عيارينو سو ان شاء الله قول سوينا ان شاء الله ما كوخد ayaa soo ciyaartay waxaan la soo ciyaarnay Ohio oo last year ahaa maxay ahayd semi finalki is group ahayn Seattle iyo Tigers is quarter finalkina waxaan la ciyaarnay team kale oo Ohio oo Symbol oo Maxamed Farax oo ciyaar yar aan la soo ciyaarnay oo adka team groupkeena teamkan la soo ciyaarnay teamam aad u adag ahayn okay meeqa ciyaarteen meeqa dhiliga badiyay saddex afar ciyaarnay saddexan badinay hal bareejan waan galnay insha Allah hadda waa mid ugu dambeysay hadda waa semi finalki weeyaan so afarta kooxood maanta dheelaysa maxay kala yihiin waxa weeyaan anako Washington DC teamkan la ciyaarayno Tennessee iyo team Ohio iyo Twin City oo Minneapolis insha Allah marka guul ay rajeynaa ilaa yiraahdo insha Allah okay حسن بسم الله الرحمن الرحيم حسن أبو سلام سافر ورتا حصل يا رب بدل جروب كانوا طبعا بي جروبي وحاول من عفرتين أنا واحد صومالي إيجلز مدنمو تينيسي تيم كله كل واحد صوب بدل لي لما جيم من ولا تايل
haye Toronto waxa teamka afar haye marka semi final kale waxa isku dhacay team kale oo haaye oo hilaac la yiraahdo haye afar iyo hal oo soo badalay maanta horta waxaan soo gudubnay qaybta semi final marka si ka samaatay horta sportigu waa sportigu game ugu adag ee ka dhaca gobolka North America waddanka aan deganahay haye horta basada la qabanay waa koob aad u adag waa koob ugu tartanka adag ee la isugu yimaado Soomaalidu oo dhan North America inta joogto ama Canada ha ahaato ama Mareykanka ha ahaato haye andan de kulay maanta waxaan filaynaa wixii kulay anaga iyo aan kala helno teamka leader sheegay Tennessee haye marka iyo wixii adiga su'aalaad qabtay weydiintiis insha Allah kulay waxa way tartankan aad ayaa loo soo abaabulay macnaha in soo dhaweynta magaalada iyo dadka oo dhan ina macnaha ugu mahad celisid wixii maanta oo ka qayb qaatay maartay reer Ohio oo dadaal ay muujiyeen iyo wax kasto lama horto waa u mahad celinaa ragii soo aas-aasay inkastoo aan ka mid ahaan jiray ragii soo aas-aasay ragii u dheeli jiray magaalada koobka ugu horreeyay koobka ilaa haddeer horto ama koox wato ama ciyaartay soo ahay ama guddiga ku jiray haye haddana waxaa ahay horta nin coach oo ciyaarta qayb ka mid ah hadda koox wata haye marka horta ragii waa rageygii saaxiibkii gudoomiyaha Bashiir Gelle mahad cawaale dhammaan horta waa salaamaya عندنا waxaa salaamaya kala ummadda inta maartay soo qayb gashay waxay Prime Ministerkii hore ee Soomaaliya Farmaajo ka soo Farmaajo وارتكب أد دلوين ولا حكي سوق قبل خليفريك حكي سوق قبل مختار عتي هذه قد أنا كوبي كذي سومالي سوق كله أربعة ويجوا هذا ها وحي لجن وحي everybody عنها كل شيء وجهه إن شاء الله تعالى أساس إن شاء الله خير أسبوعنا قول ويب سايت كاش أيوة دبنتي ودي سلام أوكي السلام عليكم أيه محمد فرح يا غير هذا عفوا ما قاعد عرب تيم كولا تيم حاملا تيم كسعودة استيت كسعودة سجل أيه محمد فرح يا غير هذا محاملا تيم كسعودة استيت كسعودة وما أنت عيار سبب فانا عيار تيم أوهايو كسعودة أتكا وحر كرقة أتكرقة أتكا ماي waxaa ka hadlaysaa in kooxda iyo diyaar garowgeeda iyo kooxaha la soo ciyaarteen haye maxaa la dhahay imise kooxood la dheesheen markii ugu horeysay meeqa badiseen meeqa neeliga badiyay iyo maanta rajada aad leedahay in aad kooxda aan la soo ciyaarnay saddex tiim kale laba wayna ka badinay midna way naga badiyeen steelna waxaan ku soo baxnay quarterfinal waxaan la ciyaarnay tiim ka socda la ciyaarnay la ciyaarnay team ka socda Minnesota Minnesota oo Tigers la yiraahdo ayaan tiiman oo wareynay haddana waxaan la ciyaaraynaa semi final team oo Ohio ka socda Eagles insha Allah ay soo dhaweynta Ohio soo dhaweyn heer sare ahayd yaa iyo dad badan oo madaxa ayaa ka soo qayb galeen oo macnaha Prime Ministerkii oo Soomaaliya oo ka mid yahay oo maaragtay dadka aad ay u jeclaysteen macnaha nin kasta la kulankiisa iyo maaragtay iyo waxyaalo fara badan ayaa jiro صح وهاي لبي سنة لبي تبنات ويان سنة كواد موي هو تمن سنة وإيمانية نوع يرتوي أما كوتشا دي إيسن معركة وقنا لهن شقة قبنا يعني مش قونا إيسن لهن ومصر الله تنسي ساعات شقة في عنا يان إن شاء الله مهم أي سمايان every year إنه معركة واحد الصبح يكسو برجني قاب يصير بيناني استقبلنا إن شاء الله su'aal dhahaa Axmed Bara waan ku magac dheerahay odayaasha magaalada Columbus ayaan ka mid ahay aadan ugu hambalyeynaya Tennessee qaybta libaax ay ka qaadatay haddana final ay imaatay marka kolley anaka waxaan reebtay Twin City iyagana inay Twin City reebaan waa iska caddahay sababtoo ah dhiman waaweyn waaye waana daalan yihiin marka calafkooda cunaya kolley Tennessee sanadkan way la tagaysaa koobka insha Allah معلم عيسى مر لبعض كسر دو برنامجك إن وحنا نقول رنتا جوشي قلبت جارتين أو أدو إلهي يراهدو أو هالجيم وهذا كده ما يهيو إن شاء الله الرب مرك كلنا إسكتي رسان مرك عيار تسوي عادي وحير نوفافه لا وما صنت هاي والله عيار هذا أدي هذا دو قادك بهاي سمفانا كيف هاي وحنا عيار دي سي فيرجينيا أو تيم عاد وهذا بس هناك وانو بدنا نايس كوب صح رقم موضوع عشان يصدح بانكو أنا يكون بدنا نجيب هذا بوها ساعات كدي نفانا كنا عيارنا ما كان تيم كصوب حالكاس لكن بدون كير كي صوب حلو أنا قول عيارنا وانو عيارتوي هذا كوا سيجار معناها إن ددال كان لجوب بدي أوكيني أي وحنا وقتها تام والله جيبي قلت
gebigo mid walba meeshiisii wuxuu shaqay la soo daro ku soo baxay mid aan oranayo maanta kana ka fiicnaa ma jiro waa mid walba kii goalkeeper kila kii goolka dhalinayay mid walba shaqadiisii ku soo baxay dhibaatada weyn ay haysta waxa weyn dhaawacna badan ciyaartoy laba dhaawacmay marka Boloniga sanay ciyaar karaan kala dikana kuwa kala bedeli doona insha Allah رحيم مناسبتان ومناسبات lagu dhiirigelinayo dhalinyarada waxaan ku raadhaa jecel ciyaaraha kubadda cagta waxaana la qabanayay munaasabadan 12 sano ugu dambeeyay haddana waxaa ka soo qayb galay 16 kooxood oo ka kala socda 12 state marka maanta waxaad u jeedaan inay tahay finalkii oo hadda aan guddoonsiin doono koobkii kuwii galay kaalintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad إن شاء الله رئيس الوزراء فرماجو ودكتور مركز تاجن إن ودكتور القبطان أدو إلى إيران وحرجين إن سيدا أن جعلنا إنه نقدر مدحونا مستقبل في الصومالية قبل كستو الصومالي أنا وحواجب كوة إنه أدو إلى إيران ودرسة بمعطينا عدة سيسية ما دام إنك سكنا نكسي هاي سيدا ونكسل معنا وجمد ومشقية iyo wax kasto insha Allah ta'ala insha Allah waa maasantay meeshan waxa ugu jeedin koobabkii abaal marinta oo Tennessee ma laakiin oo maxay to insha Allah koobkii oo la guddoonsiinayay kooxda Nashville Tennessee kooxaha maanta oo Nashville Tennessee iyo maxay to ka qayb qaadanayay oo ka qayb qaadanaya ciyaartii maanta Minneapolis iyo Tennessee dhaxmartay oo ay guusha ku raacday kooxda Minneapolis ayaa hadda u diyaar garoobayna hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala koobabkana arkaysaan waa koobabkii munaasabada loogu talagalay oo ay madaxdii maanta imaatay ay guddoonsiinayaan to waxaana iskugu jiraan kaalimo kala duwan oo ah kaalinta koowaad labaad saddexaad ciyaartida xagga awoorka ugu horeeyo koob yar koobkii loo dhigay Otaanga iyo Ohio ciyaartoydooda waxaan ku wacaya oo bixinayo koobkan mikrofoonka lama maqlo ma qarto شانو دقنا dadka rabaa arkaan xag soo istaagana kaamaristash second time Arab عرب وكل كيس لبابسين وكل شو Thank you. Okay. على المسلمين وعلى الأسئلة البيوت ترى جنايو مسلمين ويلكم معلومة
هدي لا سيبا كده اقرياس انا اقول من انا والله ها هو كثير هناك هل والله مبارك تنسي مبارك هذا فعلا والله waxaan u dooranay Dr. Maxamed كابتنك اندر 12 تورونو All Star Champion كان هو مقعد السنة كان الله ونحرسته كروبي أولمبيكا دي كوبا عقدا ويش يونكل كان وحنوك الدنسي معه أصلا الرفري وقبطي برايم مينستر كاني هورا مدن مالجو تورونتو odayaasha muqtaar Okay, haddana waxaan u waceynaa second place ciyaar fiican soo bandhigay oo tournament-kan last yearna waxay yimaadeen semi final this yearna waxay yimaadeen final waxaa guddoonsiinayo Dr. Axmed Weli oo ah sportskeena ama sportka noogu weyn Dr. Axmed Weli waxaan u waceynaa kabtanka John Tango ya la mano. odayaasha Ohio iyo dhalinyarada odayaasha ayaga waxaa guddoonsiinayo Mukhtaar ku soo dhawow kabtanka waxaan u wacayaa odayaasha Ohio Carab ku soo dhawow وين محمد رشيد كابتن ما يشوف نوتورة مركار كريس برا دوس عطا سكورس عمره 25 جول كسيتو بره عبد الغني عبد الغني عبد الغني ريسي ورير كده وعلى سوق اليوم ورا تشامبيونز ليج خليها هذيك